degmada Ceelcadde ee gobolka Gadow waxaa ka jirta horumar ballaaran oo la taaban karo oo ay ka gaartay dhanka waxbarashada waxa ayna leedahay iskuul hoose dhexe sare oo ay dhigtaan in ka badan arday gaaraysa 700 sidaasi si lamid ah waxa ka jira degmada Ceelcadde macadka Jubba Technical College halkaasi oo ay ardaydu ka bartaan kulliyado kala duwan sidoo kale waxa uu macadkani dib u bilaabay sanad dugsiyeedkiisii waxa uuna dugsigani dadka jecel waxbarashada ugu bishaareynaya in uu sanadkani qaadanayo arday cusub sidoo kale xalfadani furitaanka sanad dugsiyeedka waxa ka soo qayb galay culimada odayaasha dhalinyarada hooyooyinka iyo sidoo kale ardaydii wax ka baranaysay dugsigaasi ayadoo dadaal badan lagu bixiyay oo dadka u danqanaya deegaanka iyo bulshada halkan ku nool ee degmadan baa waxay badan ka soo shaqeynayeen in dadku jahliga laga diro oo horeyn dugsi hoose loo sameeyay dugsi dhexe dugsi sare heer maanta ilaahay uu soo gaarsiiyay dadaalkii inuu ka miro dhaliyay in loo tilaabo tacliim sare oo dugsi sare ka sareyso qaybteeda koobaad oo waliba xagga caafimaadka waxaan ardada rabaa inaan u sheego waxbarashadu waa qaali waxaan laydin barayana waxaa weeye koob naftiina marka hore inaad anfacdaan marka labaad inaad anfacdaan waalidiintii wax idin bartay oo idin barbaarisay marka saddexaad waa inaad deegaanka anfacdaan marka afraad dalka inaad anfacdaan وأنا واحد إبراهيم عمر أنا مامور دروس بسرعة العدة دروس العدة طبعا الصنع أيوه شغالين أيام مجرى مقصية هاي بتعدي تضرب بعد السوق إني كقل نجيب سؤال لحظة هراء بحري بدروس قنقاري أخبار شيء السنة بركة الدون هذه لها السفيسة عبد الله محمد عيسى ومامورها دكسيغا هوسه دegmada Ceelcadde hadii aan wax yar oo warbixin oo kooban ka bixiyo dugsiga hoose dhexe degmada Ceelcadde waxaa la bilaabay 1993 bishii saddexaad 14 xilligaas ay isaga iyo hadda inta ka dhaxayso degmada iskuulkeedu wuxuu u shaqeynayaa si xawli ah oo aad u wanaagsan waxa iska kaashaday bulshada Ceelcadde iyo jaaliyadda reer Ceelcadde iyo dhammaan waxa uu reer Ceelcadde oo dhan maxamed xasan kana mid ah macallimiinta Jubba Technical College oo ah tacliinta sare oo ka bilaabatay degmada Ceelcadde taasina saadabtiin isagama imaan yani maxaan ku yiraahdaa meel cidla kama imaan dadaal iyo rag baa ka dambeeyay waligeed iyo ilaa hadda ilaa halkan ay soo gaarto oo insha Allah taala ilaahay idinkiina aan ka rajaynay noor geliyo in hadda ka dambeeyay isbitaal weyn heer gobol oo aad weyn laga dhisay degmada Ceelcadde in Ceelcadde hadda ka dambe loola soo carari doono wixii meel ku xanuunsado magacaygu waa Cabdirasaaq Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo kamid ah ardayda dhigato macadka Jubba Technical College Faculty of Nursing ayaan dhigtaa waa sanadkii labaad ee macadka uu socdo sanad dugsiyeedka 2015-2016 ayaa hadda bilownaay magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdirashiid Aadan Maxamed waxaan ka mid ahay ardaydii ka soo qalin jabisay dugsiga hoose dhexe sare ee degmada Ceelcadde muddo dheerna ku soo baranaysay ilaahay fadligiis waxa maanta aan rajeynaynaa wixii ka dambeeya inaan ku beeri doono macadka Jubba Technical College degmada Ceelcadde waxaanan u mahadcelinayaa halkan rabaa inaan uga mahadceliyo dhammaan qabanqaabayaashii iyo dadkii ka qayb qaatay gacan weyn ka geystay in laga hirgeliyo waxbarashada heerkaana degmada Ceelcadde maanta aan doonayo inaan ku biiro waliba faculty of nursing marka waxaan si aad ugu mahadcelinayaa si khaas ah ninka sida gaarka u dadaalay aadan Cabdiqarash iyo waliba reeganaan oo dhan waxaan kaloo u mahadcelinayaa odayaasha ayagana hawshan ka qayb qaatay oo kamid yahay Garaad Maxamed Sheekh Maxamuud Cabdullaahi oo aad ugu mahadcelinayo Saadiya Xasan TV-ga caalamiga ee Somali Channel degmada Ceelcadde ee gobolka Gadow